dhowaan ayay ahayd markii nin Soomaali ah oo ka shaqaysta tagaasida caanka ah ee Black Cab-ka loo yaqaano ee ka howlgala London uu gaadhigiisii ka dhex helay lacag dhan 50,000 oo euro oo dadkii lahaa ay ku dhex iloobeen gaadhiga markii ay ka degayeen. ninkan Soomaaliga ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Gaagaale oo tan iyo 2006 ka shaqaysanayay tagaasida ayaa lacagahaasi waxa uu dib ugu celiyey dadkii lahaa. maxamed Gaagaale oo aan la kulmay ayaa iiga sheekeeyey dhacdadan dhif iyo naadir ka ah oo dad badan soo jiidatay. kabacdina waxay go'aan gaareen iga degaan oo ku degaan wadda la yidhaahdo Regent Street. xaaska ayaa wadatay boorso oo Gucci oo kala ahayd yar. kabacdi markii ay iga tagaan oo lacagtii siiyaan baa waxaan aaday hotel kale oo mataqaanaa meesha u dhow. markaan hotelka galay baa ninkii waxa ii wacay mataqaanaa maxaa la dhahaa doormaankii baa ii wacay ninka hotelka albaabka joogaa ii wacay. markaas buu yidhi gacanta uu ii taagay oo kaale buu dhahay. markaas baan arkay boorsada markaas baan arkay shaqan qaaday waxaan la tegey East London baan la aaday. markaas waayo markaan boorsada aan furayo arkayo mataqaanaa lacag ku jirta iyo waxaan furay markaan shaqadii kala dejiyey aan furaan bal fiir bal wax ku jiro. markaas waayo markaan arkay adiga 3 bac iyo 10 kun ku jiraan iyo passport iyo lacag kale euro iyo franti hoos uga jiray waxaas ku jiray. marka waan xasuustay in ay yihiin because ayaga ugu dambeeyay mugta dadka qaaday. horta hore lacagta si fiican uma wada tirin laakiin markaa qiyaas aan ilaa 50 kun baan ilaahay. laakiin ninka oo nin wareesto journal iga qoray article iga qoray baa wuxuu yiri anaa waco waxay dhahan lacagtu isku daldar 50 kun oo euro bay ahayd. halkii baan mataqaanaa aan nalka oo taxiga dansaday kabacdi aan waxaan u laabtay hotelka aan ka soo qaaday. marka dadkii ninkii xaaskiisa waceen oo ayagana meel kale aado oo soo fiirinay bal inaan meel kale daga iyo xasaas oo kala markay yimaadaan gabadhaan dhahay mataqaanaa adaa boorsada leh bal fiiri bal wax kugu jiray inay yihiin mataqaanaa inay dhan yihiin iyo kale. habeenkaasay yimaadeen. marka way fiirisay markii aragtay dhahday ayadoo ooynayso oo faraxsan oo mataqaanaa la yaabanba mataqaanaa ninkan baa lacagtaas ku soo celin kara. weliba waxay igu dhahday mataqaanaa waxay igu dhahday haddaan Mumbai joogi lahaa maba helaanba. tagaasida loo yaqaano baabuurta madmadow ama Black Cab-ka waa kuwa si weyn caan uga guud ahaan dalkan Britain. London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay uga shaqeeyaan. muddooyinkan dambe dad badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqaysta baabuurta madow ee tagaasida ah. maxamed Gaagaale waxa uu ii sheegay in abaalmarin uu ka helay dadkii uu dib ugu celiyey lacagtooda isla markaana lacagahaasi uu ku kaalmeeyey qoysaskii dhibaatada xoogga badani ay ka soo gaadhay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay Muqdisho 14 Oktoobar. way siiyaan abaalmarin fiican ay siiyaan waana sadaqana u baxsaday alxamdulillaah. halkaas qarixi Soomaaliya dhibaatooyin badan ee waqtiga arrinta dhacday asla kulmay. sheekada maxamed ayaa lagu baahiyey qaar ka mida jaraa'idka sida gaarka uga hadla gaadiidka dadweynaha. waxa uu astaan u yahay in darawaliin badan ay daacad u yihiin shaqadooda iyadoo ay u dheer tahay inuu yahay qof Soomaali ah oo muslim ah oo aaminsan in laga dhowrsado xaaraanta. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.